shaqaalaha daacadii dadweyaan sharaf lahow dalkaygow shuban shaqaalaha daacadii dadweyaan sharaf lahow dalkaygow shuban dareenkooda sharcib dulmigu waa shay ka maqan dadkana shuush kuma ridaa daawadyaalakan waxaan idinku soo gudbinaynaa waraysi kooban aanu kula yeelanay mid ka mida dhalinyarta aqoon-yahanka reer Somaliland gaar ahaan baada hal-abuurka sidoo kale dhalinyarta aqoon-yahanka ee ka mid ah barnaamijka shaqo qaran ee nasiibka hore inay noqdaan dafcaddii ugu horreysay ee gashay barnaamijkaasi oo ah barnaamijkii ugu qiimaha badnaa ee qaranka jamhuuriyadda Somaliland ku tallaabsado dhowr iyo 20 sano ee hanaqaadka u ahaa waxaan jecelahay Kayse Ciga Cali inaan wax ka weydiiyo baldurankiisa ku aadan barnaamijka shaqo qaran iyo sida uu arko iyo intii barnaamijka ay ku guda jireen guulihii ay gaadheen iyo wixii uu qabsoomay walaal waxaan noo qabsoomay horta waxaanu halkaa ku tagnay darar weyne kunkaan nin meel ay isugu iman lahaayeen haddaan shaqo qaran isu keenin may jirto kow horta dalbarasho iyo dadbarasho baanu ka faa'iidnay waa ta koobaad isdhexgal bulshaanu ka faa'iidnay waa ta saddexaad tirtirka qabyaaladda iyo qoqobkii qurunqadhaarhka dadka aafeeya oo maangaabka iyo dadka makasta ay ku dhaqmaan baa qalbiyadayada laga safeeyey mar labaadkii waana lagu kala qoray laba option bay ahaayeen laba arrimood bay ahaayeenoo in wasaaradaha hay-adaha dawladda lagu qoro uu qofku doorto weliba isagu cidna aan lagu qasbin iyo haddii uu xog maayo inuu ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland laan kasta uu doonayo uu doorto adigu tiro qiyaas ahaan 120 qof ah oo hablo iyo inamaba isugu jira ayaa waxay doorteen ciidanka qaranka intii kale ee 1500 ka soo hadhay waxayna doorteen laamihii dawladda sidoodii ayaa loogu kala qoray maanta ilaa heer gobol ilaa heer degmo ilaa heer tuulo way ku kala qoran yihiin dhalinyaradii iyagoo loo eegayo haddii uu xog maayo shahaadada sitaan aniga ahaan khaasatan waxaan soo diyaariyay 2 fakal oo ah agriculture and environmental science iyo haddii uu xog maayo HRM human resource management and leadership waxa la igu qoray mid degree baan ka sitaa midna diploma okay degree-gaygii oo agriculture ahaa wasaaradda beeraha toos leegay wasaaradda beeraha ayaa toos leegay waanu ka shaqo galnaa qof aan shaqayni shaqo qaran ma jirto waxaan se leeyahay aanu dirayaa meel kastoo reer Somaliland ay joogaan barnaamijka dib waata loo qaadanayo yaan la dhaafin dafcadda labaad ciddii ka hadhay tan soo gal arday fara badan oo reer Somaliland iyo bulsho kale oo reer Somaliland ayaa doonaysa inay galaan dafcadda labaad ee barnaamijka shaqo qaran maxay tahay caqabada talow ka horeysa ardaydaasi attendance-ga ama joogitaanka ardayga iyo habsanka ma la qiimeeyaa shuruucda meesha lagu joogayaa sida ay tahay sideese ayuu ardaygu ku waayi karaa fursadaasi soo ka mid ah ardayda barnaamijka shaqo qaran horta mid ta koobaad markaad tagtid goob kasta waxay leedahay system iyo shuruucda waxa ka mid ah ardayga hadduu 3 casho maqnaado waa eri uu waayaya hadduu imtixaan kasta galo waxa kaloo ka mid ah haddii uu xog maayo inaanu duruusta la qaadanayo aanu ka maqnaan duruus baa lagu qaataa meesha duruustaas waa duruus military system iyo military management iyo duruus haddii uu xog maayo civil ah oo wadaniyada markaad baratid dee waa lagu qiimanaya discipline iyo ishbilin baa lagu baraya markaad intaa ka timaadid waxaad noqonaysaa qof nool oo nolol hoose ku jiray haddana laakiin qof nool oo dalka iyo dadka iyo diintaba wax tari kara waxna gudi kara waxna gadi kara qof la dagaalama musuqmaasuqa qof la dagaalama eexda iyo kala qoqobta iyo qabyaaladda qof dad wuxuu noqonaysaa qof dadku isugu kaamid yahay aanan la jeclaysi iyo haddii aanad ku dhacayn wuxuu kuu diidayaa ama ku barayaa qofnimadaada ama qofku wuxuu yahay
qofka maxaa laga doonayaa muxuu xaq u leeyahay maxaa xaq loogu leeyahay maxaa haddii oo xog maayo laga rabaa marka waa duruus aad u qaali ah ma anagoo jaamacada ka soo baxay laba jaamacadood ka soo baxay ma aqoontii maanta se madaxweynaha waajibaadka ugu leeyahay waan aqaan janankana waan aqaana qofka faqiirka ah ee darbi jiifka isna waan aqaana qofka curyaanka ah waan aqaana qofka haddii oo xog ciidanka ah askariga ciidanka qaran ee gaarka u taagan dhibaatadiisa waan aqaana iyo gaajadiisa qofka ardayga ah isna wuxuu gudo iyo wuxuu galo isna waan aqaana waxaan jecelahay in aqoonta kuliyadda tababarka ee ardayda barnaamijka shaqo qaran ay bixiso oo ugu horeyso wadaniyadu in kaysa uu 2 ama 3 inoo iftiimiyo oo ah xaq lagu leeyahay ardayga iyo muwaadinku xaq uu leeyahay xaq wadanku uu ku leeyahay waa xaq wadanku igu leeyahay kow horta waa inaan difaaca laba waa inaan haddii xog maayoy aan daacad u ahada waa inaan haddii xog maayoy wax soo saarka iyo khayraadka ku jira ilaashada oo anigu aan la soo baxaa oo aamina waxaad arkaysaa dhallinyaradeenii dhammaanteed intay laag tahay way qalbiga ka wada dhoofeen dalkaba ma aaminsana daad wadaniyadii baa meesha ka baxday wadanimadii ayaa meesha ka baxday markaa waa inaan aaminaa la soo baxaa khayrkay iyo dalalka dhigayga ah aan ku dhaafaa xaqa oo igu leeyahay haddii xog maayoy wadanku waxaa ka mid a dastuurkiisa oo aan ilaaliyo oo aanan ku xadgudbin oo aan xafido dastuur ka horeeyey maan aqoon laakiin halkan waa lay qaybiyey wasaaradda dastuurka ay qaybisay dabeedna waan bartay caasimaddu maxay tahay baarlamaanka maxaa lagu heli karaa maxaa xaqa hadduu xaqa uu madaxweynaha dabarka hayaa waa maxay maxaad kula xisaabtamaysaa wax loo yaqaano qabyaaladii ma ku taallaa dastuurka dhammaantii wax qabiil la yidhaahdo kuma yaallo wax saami qaybsi la yidhaahdona dastuurka aynu samaysana jamhuuriyadda somalilan kuma yaallo wax haddii xog maayoy ab iyo isir laleeyahay gobol hargeysa reer hebel baa diga kuma yaallo wuxuu ku barayaa markaa waxaad ku kala baranay xaqa qof kastiba somalilan in loo wada siman yahay inaan cidda kale aanay powerful ku lahayn ee si isku siman ay wax loo soo wada dooran karo si isku siman haddii xog maayoy loo tartami karo si isku siman dalka loo wada difaaci karo si isku siman loo wada gorgortami karo oo miiska wada hadallada la isku iman karo marka laga yimaado ardaydaasi baratay xuquuqaadka iyo waajibaadka kala duwan ee qaranka ku leeyahay iyo ka ay qaranka ku leeyihiin oo qayb muhiim ah ka wadaniyada waxaan isu taagi doonaa kayse halka ugu muhiimsan oo ah fursadaha marka la galo dugsiga tababarka kuliyadda tababarka ardayda barnaamijka shaqo qaran fursadaha marka laga yimaado shaqooyinka hadhow wasaaradaha tagayaan iyo ciidamada ku kala biirayaan fursadaha kale yaala waxaa ka mid ah qaybihii waxbarashada dibadda oo fursadda koowaad ahmiyadda xukuumadda ay siinayso in ardayda barnaamijka shaqo qaran ku jira fursadda koowaad la siiyo sidoo kale barnaamijyadii maalgashiga ee dhinaca kambaniyada caalamiga iyo shirkadaha waaweyn adduunka oo iyagana ahmiyadda koowaad la siiyey barnaamijka ardayda ku jirta shaqo qaran bal waxaad bulshada la wadaagtaa 2 ama 3 fursadood oo ka mid ah fursadii soo maray inta barnaamijkan ku guda jirteen marka laga reebo tan hay'adaha wasaaradaha dawladda iyo barnaamijka kale ee ciidanka qaranka jacfaraad bad mahadsan walaal su'aal fiican fursadaha aanu ka faa'iidnay meesha darar weyne ama kuliyadda qaaliga ah waxaa ka mid ah kow markaanu saa uga soo baxnay imtixaanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaanu ilaalinay wasaaradda waxbarashada markiiba lagu amray in ay shaqo qaran waa ku kalsoon yihiin horta waa aaminaad dadkii baa ku aaminaya kow waanu ilaalinay imtixaanka fursada labaad Singapore بريتها لقلي يا تحنكيس سقال بقولوا أرضي بس وحرستي سقال كابقولي أرضي لو كلا يحن معيو قبل بكيمي دق بكيمي حافظ بيا هاي إلا هم شن طبعا ولا لا يكون شران طبعا هذه طبعا ولا لا يكون شران وتحان كاكو صباحان ولا قلت تميسي عدالة الله صحية يتحان كنا واحد قاعد يسا سنغافور ما هو سارد وحبرشاد ما هو سارد كلا ما هذا بحكم دحتويو مد قاعد يسا هبا يراتي ما شرتو والرير هبل إيو والليقى إحدى متونا ما شرتو
waxay ka howlgelayaan shidaalka waxay ka howlgelayaan macdanta iyagaa department waa 400 oo qof baa laga qaadanaya Singapore baa la geenaya waa lagu soo tababaraya muddo 2 sano ayay ku maqnaanayaan waa laba fursadood soo ma haysid fursadaha saddexaad ee soo baxay waxa ka mid ah waxbarashada dibadda oo hadda soo baxday iyana waxbarashada dibadda iyana sidaas leeg ayaa loogu tartamaya oo iyaga kaliya ay koota ugu xidhan tahay barnaamijka shaqo qaran bay koota ugu xidhan tahay wax kasta oo dalka ka soo baxa xataa iska daa wax kale doorashada waxaan aaminsanahay inagoo aan gaadhin inay noqon doonaan waxay noqon doonaan commissionkaba in commissionka sidooda barnaamijka waxa soo xisbiyada soo doorta oo keensada laakiin inay noqdaan commissionka u dhexdhexaad u ah u cidii tartamaysa kaysaciga cali marka laga yimaado 1500 arday ee maanta intaas soo fursado helay waxa laga yaabaa cid fursadaadi ku soo celiyay mid la qaybsanaysa wax noqon doona dafcadda labaad oo iyagu noqon doona in lamida intaas hore baxday waxa ku xigi doona dafcada kale iyagu fursada ka faa'iideysan doona marka sanad walba intaas ay soo baxdo hadii Ilaahayna gaarsiyo 10 sano min qiyaaskaaga halkii gaari doona shacabka reer Soomaaliland maxaa iska bedeli doona horumarka bulshada iyo isku tiirnaanshaha bulshada orto totalka ama dafcadan labaad way ka qaalisanaanaysaa tii hore oo kale waxay sababta ugu qaalisanaanaysaa kow barnaamijka anaga nagu bilaabay shay kasta oo la bilaabo maradhal buu sameeyaa dalka waxa iska bedelayaa dad baa ka shaqeynaya hawlkar ah dad baa ka shaqeynaya wadaninimada iyo waaya aragnimo leh mid militarinimo iyo mid anigu ma aqoon saacatan markaan halka galay haddii maanta laga dhigi lahaa bisheedii kal hore laga dhigi lahaa madaxweyne ama ra'iisul baarlamaan afka aan kula hadlo ciidanka ma aqoon agnaan banka inta aqooni ka qarsan tahayna waxba ma xukumi kartid weey marka horta dalka wax soo saarkiisa baa badanaya aaminaadii lagu kalsoonaan lahaa iyo tirtirkii qabyaalada meesha ka baxaysa halkii odaygu soo kaxaynayay oo inanku markuu 2 master ama degree soo kaxayso yiraahdo ii qoray walaal halkan ii qor waa shahaadada la qiimanaya halkan shahaadada la qiimanaya maxaad baratay weey waxaan bartay engineering waxaan bartay beeraha waxaan bartay hadii xog maayoy macdanta wasaarad waliba teedii ayay hadii xog maayay aad ku galaysaa shahaadada ku xaynaysa marka dalkana horumar fara badan baa imanaya وحين wax laga baxay qabyaaladii iyo qoqobkii iyo eexdii iyo rashwadii iyo wixiiba waa laga wada baxaya waxaan qabaa barnaamijkaas inuu yahay laf dhabarka horumarka 20 sano ee soo socda ee Soomaaliland ta lagu gaari karo kayse barnaamijka shaqo qaran waxa iyaguna door muhiim ah ka hablaha halka wadaniyadu ka bilaabmata waa qoyska iyo guriga waxa ka soo baxay iyo hooyooyin kala duwan oo hooyooyinkii bariya barnaamijka shaqo qaran maanta ku jira bal waxaad ka warantaa doorka hablahaas ay ka qaateen barnaamijkaasi iyo bulshada waxay ka bedeli karaan haddii tiradoodu intaas ay ka sii kordho ama inta ay ku jiraan maanta tirahaanba haweenka markii hore ama hablaha meel kasta joogaan horta waa mahadsan yihiin oo marka labaad waxa la oran jiray lalahaa inamada ayaa ka fursad fiican hablaha tiimaanta meesha waa laga saaray haddii la yiraahdo 200 shaqo qaran baa la qaadanaya koota waxa iskale 1,000 iyaga iskale 1,000 inay helaan iyaga iskale barnaamijkan waxyaabaha uu kaga qaalisan yahay waxa kamid ah horta kootada hablaha la siyaad bay u fara badan yihiin oo la yiri idinku imtixaankiina keensada waayo inaan ku fursad bahaysan jiray odaygu daba gali jiray inantu intay jaamacad kasta haday soo gasho guriga iska fadhiyi jirtay halkii ay ka baxday yaraanteedii bay dib ugu soo noqonaysaa Soomaa tiiba markaa meesha madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka saaray wuxuu yiri habluhu xaq bay u leeyihiin dalka si fogooda ha keeneen imtixaankana ha galeen shaqo qaran waliba darar weyn tagi maayeen ee jaamacadaha gobol waliba u leeyahay ee dawladda ayaa hadda xog maayo loogu dhigayaa civil engineering
tii fursad bay u noqotay maantaba waxaa shaqeeya 550 hablood waxaan aad ugu darayaa waan ilaaway markii hore barnaamijkan wuxuu siiyey muhiimadda dadkii naafada oo la ilaaway naafo shaqaynaysa miyaad aragteen maanta waa la wada shaqaynayaa waad arkaysay naafada gobol kasta degmo kasta in baa layidhi iyo tuulo kasta la kaalay soo xerayso haddaad ashaada sidatid weeye waxaa kaloo barnaamijka aad loo siiyey hablo iyo haweenba in lagu tixgeliyey hablaha shahaadadoodii tay sidatay loona geeyey goobtii wixii ay soo baratay wixeedii han hooyada waxay soo ka bedeli kartaa kow mar hadday hooyadu aqoon leedahay ilmaheeda ayay aqoon gaadhsiin kartaa wadaniyad gaadhsiin kartaa mardii hooyadu ay wadaniyad gaadhsiisay ilmihiina ilmahaas wuxuu noqonayaa ilmo dalka iyo dadka iyo diintaba difaaca oo horumar gaadha waayo dawladdu ama qoysku ama qaranku wuxuu ka soo aas-aasmay laba qof oo lamaane ah soo ma lamadaa lamaane mid ka mid a waxaa la isku aragti maahu nafluhu kala aqoon roone labadiis ag joogaba midbaa aayatiin kale labadaa qof ama qoyska reerka odaygaa wada ama waxaa wada hooyada ayaa wada marka waxaan leeyahay wax weyn buu ka bedeli karaa lafdhabar buu u yahay halkaa yaan loo daymo la'aan waxyaabihii kale oo badnaay oo dhan ha la iska daayo qaranka qalin ha lagu gaadho kayse ciga cali oo ka mid ah ardayda barnaamijka shaqo qaran oo barnaamijkan marti inoogu ahaa waxaan jecelahay daawad inaan weydiiyo su-aasha ugu dambaysa oo ah in bulshada reer somalilan la wadaago maalintii barnaamijka lagu dhawaaqay shaqo qaran madaxweynuhu ku dhawaaqay markii ardaydu ay xaraysanayeen cv-yada musawirkoodii ama muuqaalkii maskaxdooda ay qaadanaysay siduu ahaa iyo maanta siduu yahay iyo kala duwanaanshaha farqa u dhexeeya labadaasi jacfar aad baad mahadsan tahay su-aal macquul ah oo aad iyo aad u wanaagsan weeye sababtoo ah maalintii la soo dhejiyey warqadda waan akhriyey maalintii agaasimaha guud ee warqaddiisa lagu magacaabayna waan la yaabanaa markii la yidhi darar weynay gelayaan inamaduna waan sii yaabay waa yaabkii amankaaga iyo yaab baan qaaday moogtay dadku waxay igu lahaayeen way cambaareen waxay lahaayeen ma askari qaranba ma askari baad doonaysaa anaa qoray kuu dhiibaya halkan tag haddaad askari doonaysid dabadeedna niyad jab baan ugu dhacay dadka badankii waa wada xaraysan lahaa laakiin waxyaabahaasoo dhan ayaa aafeynayayoo bulshada kaga imanayay askari baa dadka laga dhigayaa dhallinyarada askarku waa ninka dalka ilaaliya dee waa ninka ugu qaalisan askarinimo waanu xeraysannay markii koowaad shuruudana lagu xidhay shuruudaha kow waxaa ka mid ahaa inuu id kaadhkii dhalashada qofku sito laba inuu sito haddii aba xog maayoy inuu sito shahaado inuu sito sirdoonka uu ka sito warqad caddaynaya dembi la'aan inuu sito inuu dalka gudihiisa aanu wax dembiah ka gelin intaa markaad samaysid cv-gaagaad qoranaysaa waad geysanaysaa odayna kaxaysan maysid islaanna kaxaysan mayside waxaad dhiganaysaa gobolka barasaafka kaa qabanaya halkaasaa lagu ururiyey imtixaan baa la soo dhejiyey imtixaankaasaa wasaaradda waxbarashadu qaaday oo ay kor ka ahaayeen xafiiska shaqo qaran iyana kiibana waa gallay waa ku soo baxnay waanu gallay gobolladii baanu sidaa kaga soo ambabaxnay gobolladii markaan ka soo baxaynay markaan meesha tagnay dadku way nahiifayeen haddaa iska daaya xaafadaha lahaa maxaa doonaysaan iska jooga maalintaanu furnay ee madaxweyne qaranka iyo xisbiyadii qaranka iyo haddii aba xog maayo waxyaabihii oo dhan ay wada yimaadeen waa lala yaabay oo gobolladii baa lagaga soo dhacday waxaa ka dhacday in oday waliba iyo islaan waliba ay tiraahdo fadlan inankii iyo inantii noogu dara haddaba maxay faraqa udhexeeya waa maxay faraqa u dhexeeyaa maalintii furitaanka iyo maalintaanu soo baxaynay soo waxba ma ahayn
adigu 20 casho 30 casho u dhaxaysay maalintaas la ogaaday muhiimadda uu leeyahay barnaamijkan waan furay maalintii waxaan ahaa arday ku hadlayay shaqo qaran afkii shaqo qaran maalinta ahmiyaddii aanu helay 3 bilood waxay noogu qaalisanaayeen 10 sanadood waxaanan guryaha ku haysan ama degmooyinka kale la joogin oo daryeel ah ayaanu ku qabnay maalintaanu gobolada u baxnayne barasaabka dhalinyarada waayeelka cuqaasha salaadiinta boqorada ogaasyada saxaafadda madaxa bannaan dhammaantood waana soo wada dhaweeyeen waxay noqotay in la kala horsado la yiraahdo alla waa arday shaqo qarane ka baneeya in hay'adaha sectorska waaweyn telesom daabshiilo dhammaantood ay yiraahdaan la kala horsadaan oo yiraahdaan waa shaqo qaran marka magac iyo maamuus sharaf iyo karaamo wuxuu ku xidhan yahay hadba inta go'aan qaadashadaas ay leegtahay iyo ficilka aad samaysid ayaa wax walba ku bedeli kartaa waayo waxaan aaminsanahay anigu ahaankaysa ciga ahaan inuu oo naf ahaantayda aanu aaminsanahay inuu ahmiyaddii iyo dareenkii iyo higsigii iyo himiladii laf ahaaneyd inuu meel sare i gaadhsiiyey inuu magacayga iyo maamuuskaygii sharaftaydii iyo karaamadaydii kor u qaaday inuu haddii oo baxog maayo waxaana weligay heleen inaan helay markaan shaqo qaran galay waxaan leeyahay qof kasta oo hoga isku og qof kasta oo aqoon leh qof kasta oo dareenkiisu iyo waayo aragnimadiisa iyo aqoontiisa iyo wadaninimadiisu ay xeel dheer tahay yaan la moogaan haddii oo baxog maayo barnaamijka shaqo qaran waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo ah gaarhaye mar walba dadka iyo dadka gobol ilaa degmo ilaa tuulo gaar ka haya oo aan u hanweynahay aad baan idin salaamayaa adiga Jacfar iyo haddii oo baxog maayo Marwan Sulub dhammaantiin waxaan idin leeyahay isma dhaafno guuleysta horumar iyo higsi nololeed baan idin rajaynayaa saaxiibayaal aad saxaysid daawadayaal intaas waxaanu ku soo gabagabeynaa barnaamij gaar ah oo idinka soo diyaarinay sirta ku duugan barnaamijka shaqo qaran iyo fursadaha dhex yaalla barnaamijkaasi iyo sida ay uga faa'iideysteen ardaydii kala duwanaa reer Soomaaliland barnaamijkaasi ka qayb qaatay iyo waliba hanka iyo rajada ay leeyihiin in qaranka mustaqbalka ay kor u qaadaan iyo in ay gaarsiiyaan dalka halkii laga doonayay aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa Kayse Ciga Cali oo kamid ah ardaydii barnaamijka shaqo qaran ku guuleysay isla markaasina waqtigan diyaar oo inay ka qayb galaan imtixaankii ugu dambeeyay loogu tartamay barnaamijka dhinaca maalgashiga shidaalka oo ay qaadi doonto kambaniga ka socda dalkaasi Singapore oo insha Allah dhawaan si rasmi loo qaadi doono daawadayaal barnaamijkan mid lamid ah koorinta ku kulmana waxaan isugu iman doonaa barnaamijyo kale oo xiiso badan oo kuwan lamid ah oo idinku soo marti qaadi doono isla markaasina hortiina aan ku keeni doono qaar kamid ah ardaydii ka faa'iideystay barnaamijka shaqo qaran oo hal-abuurkooda iyo wax soo saarkooda iyo maskaxdooda oo soo saaray barnaamijka shaqo qaran iyadoo in badan oo ardaydaasi kamid ah inta badan bulshadu mooganaayeen waxa ku jira ama ku duugan haday dhinaca aqoonta dhinaca hal-abuurka iyo dhinaca kartida ilaahay hibadu gaarka u siiyay barnaamijkana daawadayaal waxaan jecel intaas inaan ku soo gabagabeyno mar kale Kayse aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa shaqaalaha daacadii dadweyaan sharaf laho dalkay dhiigow shuban shaqaalaha daacadii dadweyaan sharaf laho dalkay dhiigow shuban dareenkooda sharcib dulmigu waa shay ka maqan dadkana shuush kuma ridaa dareenkooda sharcib dulmigu waa shay ka maqan dadkana shuush kuma ridan dadyow sheekh iyo shariif shaqada qaran waa dugsiga shaqo qaran shaandhaysa muwaadinkeeda